runtii diiga ayay gelinaysaa markaan aragno shacabka reer Somaliland meel kasta ay joogaan hadday tahay waddanka gudihiisa iyo hadday tahay qurbahaba marka sidaas oo kaleeto naloogu yimaado naloo soo dhaweeyo runtii waxay tusaysaa taageero aan dadka ummadda ka haysano iyo diilana wayna gelinaysaa arrinkii aan galayna way nagu sii marka jazaayik allah baan leeyahay nagu timaadeen nasoo shaqtay ilaahay reer Oslo ama Norway isuma cuskin aniga 2011 ayaan kala qayb galay xafladii 18 May ee Somaliland halkan aan joogay runtii dadka baan isu baranay qaarkood halkan caawa waxaan ka helay asxaab aad u fara badan ehel aad u fara badan ayaan ka helay halkan oo aan in badan isugu hay'adaysay oo kala nagaaday runtii waxaa ka mid ahaa dee caawa cabdi hayloolaamba saaxiibkay oo isku kala asaajinaysa ag fadhiisan jiray cabdi hayloolaamba iskuulkii faarka markaan wada dhigan jirnay markaasaan marka iskuulka laga soo baxo soo wada logeyn jirnay waxaan soo mari jiray muufadii roobida dhowr xabo roobida kusoo qaadan jirnay bahal qosalaayo halkaasi isweydaagsan jirnay anigu qoslaynan magaalada sii weyn jiray cabdi hayloolaambay waa mid taalent ah waxaana leeyahay cabdi hayloolaambay sidii berigii iskuulka aan nahay adiguna waxaad ku dheeraysay anna waxba ku dheeray laakiin caawa waxaan ka caddaynaya cabdi hayloolaambay inuu ahaa nin isagu haybad ilaahay siiyey oo taliintan uu ku wanaagsan dee xaggan kale sugaanta iyo qosolkale uu ku wanaagsan aniguna waxaan iska ahaa qof qosoldaadhiyo bahalaha wargariyo jecel oo ka umiliya marka anigoo ka dhegeysan jiro waxaan ahaa nin ka dhegeysta bahalaha marka isaga halkan salaamaya caawa haddaan usoo leexin dulucda safarkayagii caawa halka waxaan la fadhiyay gudoomiye ku-xigeenkii xogayihii madaxdii xisbiga ayaa nala joogta halkana dad fara badan oo jaaliyadda reer Somaliland ayaa iyaguna jooga iyo taageerayaasha xisbiga ucud ayaa halkan isugu yimid kulley fariin baa naga filanaysa fariintaan caawa idiin haynaa waa maxay waxaan filayaa fariintaasi faadimo Siciid baa mar hore iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo Siciid ayaa mar hore iyagu si fiican u artikeliyey laakiin haddana in yar ka hadlo waxa weeyaan anagu waxaan leenahay warbal dad cusub iyo wax cusub iyo maskax cusub ah la tijaabiyo anagu soconaa waa intaas kulli barnaamijkayga caawa halkan anigu haddaan ka soo istaagno barnaamijkaygii waa dhan ii sheegay kulli waa waqti loloonaysa laakiin waxa weeyaan waddankeena reer Somaliland saad ogtihiin qadiyad meelo badan buu kasoo dabaalay dadkii hore ee qaranka soo gacan qabtayna mas-uuliyiinta kasoo noqdayna wax badan ayay soo qabteen la odhan maayo waxba may soo qabtay meel maray bay u tegeen waddan la bamgariyey bay u tegeen waddan la dhameeyey bay u tegeen markaasa dibidhis lagu soo sameeyey reer Somalilandna qurbaha weliba qurbo aad bay u dhisteen waddankoodii 20 sannadoodna nabad ayay kusoo caanamaalin institutionskeeni qaar oo dhisanay qaarna weli way yaro laalaanan waxaan u baahanay inaan ka hadno haddaba waxaa la soo gaaray xilligii Somaliland si xawli leh inta kor loogu qabto si fiican loogu fallaha ayaa la soo gaaray ayaan is leenahay waxaan is leenahayna dadkii shacabkii reer Somaliland siyaasaddii laftirkeedii in dhiiga cusub lagu shubo oo dadkii dee siyaasadda marka hore ku jiray laftirkoodu dee inay iyagu kolba shacabka usoo qashadaan ama aanay ahayn oo kolba haddana way intay nolol lahayn oo dad cusub oo iyaguna laftirkoodu dee bal soo biirin karaya in iyaguna u noqotaan oo sacrifice aad samaysaan waddanka u samaysaan haddii qof walba oo reer Somaliland uu qurbaha iska joogo oo iska raaxaysto oo noloshiisa ayaa iskaga jiro oo waddankii aanu dhabaraadeegin oo loo sacrifice karin
waxaan maalayaa waddankeenu marka dambe cid walba cid bay ku hadlaynaysaa marka dambena wuu soo baaba'ay haddii aan maaragtay maaragtay la tegin waxaan ku guubaabinayaa dadka qurbaha jooga ee kari karaayo awoodi karaayo inay mar walba lafirkoodu maskaxdooda ku jirto inay mar walba ay noqoto lafirkooda inay kusoo kordhiyaan oo ay ka qayb qaataan nation building ama institutionskan waddanka aan dhisayno in sidii kor loogu soo qaban lahaa markii dhaweyde ayaa la hadlayay waxaan soo xasuustay faadma sicid ka hadlaysay qadiyada ama pointka ka hadlaysay leedahay dad cusub iyo fikrad cusub iyo maskax cusub aan keenayna ayaa haddana waxa ficanda dadka banaadamkii inay wax ka bartaan wixii hore ee ay soo arkeen mararka qaar ay wax bedelaan waa tii lahayd ucid waa markeedi waan malanaya kulmiye iyo umriya way soo qabteen waxaan xasuustay sheeko allah u naxariistay odaygii eeshkaasiga anayska u lahaa ayaa xidhacday beri isagoo sacuudiga jooga ayaa ninbaa beriga horta waxay dhacday balka aroori ayuu gaari ku jiro gaari kalaa markaa balkii gurmad ugu imanayay gaarigii gurmadka ugu imanayay haddaba gaari qurun baa balka arooroola yaala ayaa gaarigii kala jiray waxa way hal gaari baa meesha yaala oo gaarigii gurmadka siinayay ayuu jiray haddaba ninkii gaarigaa waday ayaa xasan isku arkeen sacuudiga ninkii oo darawalo markaas isagu markaa xasan waxaa sheegtay ayuu siiyey balqaad xasan baa diyaada gaarigaa fuulay markaa su-aada maxaa dhacay su-aada soo baji ninkii balka aroori gaariga ku jira markaasuu yihi ha diyaada isaan ku aaminaamin hadda imanka waxa weeyaan dulucdeedu waxay tahay dadka qaar waa la soo tijaabiyey ummadduna way soo arkay dadka qaarna lama tijaabin waan anugu ka mid ahay oo ummadda may soo arkay waana runti dadka qaar waa la soo tijaabiyo ruxurkooda waa lagula isticmaalayaa oo la eegayaa oo qaarkood baa balka aroori gaar ku jira dadka qaar waa anigoo kale oo lama soo tijaabiyo oo lama garanayo ruxurkoodii horeeto ee waddanka marka laga hadlayo oo xaashacad bay wata waxaan xasuustaa nin baa igu yidhi waniyo adiga laguma soo tijaabin oo meeshan ma garanaysid waddo qurbajoog baa ahay sideeba meeshan iyo ad waxan adigu iga dabaalanaysaa sababtoo ah meeshan waa meel iska caaya iyo socda adigu meela xaamiyaad ka timid xaami loo socda meeshanna waa meel dee iska socotoon oo gaariga 1 iyo 2 baa lagu wadaa de markaasaan kuli war dee warmayn gaarina gaarigana 3 iyo 4 gelino maasaan haddayn weligeen 1 iyo 2 ku wadna inagaaba gaarina meesha doorida waxaan malaya marka waxaa loo baahan yahay markii wax la soo gaaray gaariga 3 iyo 4 la gelin lahaa ayaa la gaaray in badan bay 1 iyo 2 kusoo wadnay in badan bay dadkeenu soo dhabar adeegeen bal aynu tijaabin haddaba 3 iyo 4 banka tijaabin oo aynu eegno dadka cusub ee siyaasadda cusub la imanaya injineer faysal cali wuxuu ogolaaday in xisbigiisii la xoojiyo xisbigii cadaaladii daryeelka wixii wuxuu ogolaaday in dhalinyaro ay timaado somaliland taasi waa ka dhif waa dhif iyo naadi wuxuu tusayaa tusaale cusub ayuu furay beij cusub ayuu furay waxaan maanaya wax badan baa laga baranaya faysal cali waraab taariikhduna ay ku sheegi doontaa marka xagga siyaasadda laga hadlaayo faysal cali waraabe reference baa la samayn doonaa waxaa looga doonaa sidii faysal sameeyey oo reer waad aragtaan successka ama waxaa la yidhaha marka wax la isku darsado sida ay u shaqayso ee wax la wada wadaago xisbigana adiga arkaayo oo reer xaamil ugu socdaa xawlina ugu socdaa qolooyinkii diiday inay cid wax la wadaagaan ee yidhi iyo kanba keliya haysanaya waray noqoto inuu guulaystay oo somaliland wax badan kasoo dabaalay si wanaagsan buu u seexanaya taariikhdana way xusaysaa waxa weeyaan laakiin dadka qaar baa u haysta oo
taariikhda in lagu galo qofku marku uu madax noqdo ama uu nooxu sameeyo laakiin dadka qaar Mahatma Gandhi sad la socotaan weli madax muu noqon waddankiisa madaxweynena muu noqon haddana waa the most powerful Indian ee la yaqaano taariikhda lagu yaqaano madaxweynena muu noqon uu ka tanaasulo rag buu uga tanaasulo laakiin waa la yaqaana taariikhdaana waxaan rabaa inuu Faysal Ismail sidaas haddaan usoo laada xagga waddankeennii ama waxyaalaha aynu isleedahay in la eega u baahan waddankeennii saa la socotaana hadda xaggii dhaqaaluhu burburka baynu ku joognaa runtii waddamada ugu fiqirsan baynu nahay budgetkeenu waa 100 milyan aad baan ugu faraxsanayn laakiin 100 milyan waxba maaha waa hal kambani oo macaasha kambaniyada ugu yar ayaa soo saaray Somaliland waxay u baahantay waxaa wax ka badan waxay u baahantay nation institutions in la bilgayo cashuur ururintii laftirkeedii in la bilaabo in dadkii la isu balance garay xaggii social waqti hore looga hadlayay waxaa moodaa in difference u dhaxeeya kuwa fiqirsan iyo kuwa taajis oo aad u sii kala fogaanayo waxa weeye haddii taasi inuu sii socotaan nabaddarro ay keeni karaysaa waxaa u baahan in wax laga taabto xaggii sharciyadii Somaliland oo dhan badxadoon wax allaali wax yaroo kasta waa isku qabsanay wax badan baa inaga qabiyaa wax badan aad u fara badan ayaa inaga qabiyaa intaan nabadda la suuxsanay ay wax badan ina seegeen sababtoo ah nabaddu baynu habi ku ahayno mar walba dadkeenu waxa la isu kombeelgaraynayo mar walba koonfur oo dhibaata ay ka dhacayso reer Soomaaliya oo dhibaata ka dhacayso ayuu isu barbardhigayno markaas ma naahnaa oo wallahi kuwaas in ka fiican isuma iska saxanaa mayna leeyihiin waddankeenu waddamada jaarka nalaha dhaqaale ahaan sida u kobcayeen GDP-gooda dhaqaalahooda halku marayo waddankeenu wax statistics waxyaalaha badan ma jiro dadka kama warhayaan dhaqaalaheennu kor buu socdaa hoos buu socdaa barkan inflationskii keenayay dadkii maaragtay maciishadii ku keenayay maxaa u sababa dowladdu maxay ka qaban laadahay mushtari maxaa loo regulate-gareyn layahay cuntooyinka qaarkood ayaa ah necessary oo for example waddamadan aan soo maro beris oo kaleeto haddii la isku qaadqaato dhibaato u keeni jiray oo streetka caqalad baa ka dhici jiray sababta dowladdaa keeni jiray dowladdu sidee arrimahaas oo kale looga dhiggaranaya waxaad moodaa Somaliland in siyaasadda lagu mashquulay aad u fara badan dowladda laftirkeeda siyaasadda mashquulisay dadkiina wada siyaasiyiin ay noqdeen oo mar walba roolkii dowladdu laga doonayay ee ahayd anigu waxaan ka hadlamayo dowladda imanka mana dhaleecayna waxaan ka hadlayaa xataa kuwii dowladii ka horreeyey wixii soo jeeday waxaan leeyahay wax badan sababtoo ah wax badan caalamku siduu u shaqeeyo markaan soo aragnay iyo caalamku siduu u operate gareeyo waxaan isleenahay waxa laga success transfer waxyaalaha kale adduunka aan kusoo aragnay ayaan keeni karayna taanu uma nihin dad also dad waddanka ku koray oo dadkii kala garanaya oo waddankii kala garanaya intaas aan joog ahayna mar walba waa tegayna waa ka warhayna xaaladda waddanka si wanaagsan mar loogu hayna annagu waxaan filaynaa inaan nahay meeshii laga abaarayay dhibaatooyinka inaan toos u garanayno maalinta ugu horeysa day one idinku dul baramayno shaqada maalinta xukunkana loo dhiibo shaqada idinku dul baramayno laakiin dad shaqada yaqaana ayaa la keenaya meesha mar hore ayaa dhowr shee ka hadlay bay baan ninkuu idhi boos ii ah waxaad ii sheegtaa wax si kaa fiican adiga shaqada qora dadkaasina waxaa ku tiraahdaa inay iyaguna ay qortaan dad iyaga kasii fiican hadhow tala silsilada hoos u soconaysaa ayo dadka shaqada qabanaya dadka ugu wanaagsan dabaana maanta diyaar waxaan u ahay inaan dad xataa aniga iyagu taagansan iga fiican inaan shaqada keeno oo aan soo jiito oo ay Somaliland u shaqeeyaan iyo dad iminka siyaasadda ku jira oo jaanis waayey laftirkooda oo dad wanaagsan aan laftirkooda si ay u soo galaan
waddanka wax ugu qabtaan waxaa kaloo aan samaynayna waxa la yidhaha maamul wanaag waa maxay waxaa jirta wax accountability inay jirto waddan dhan oo bila accountability ah faysal baa dhowr jeer iga qosliyo wuxuu yidhi xaflad baa la qabanayaayo markaasi 5 wasiir tegaya xafladii oo qalin jirin 5 wasiir boo u baahnaa xafiisyadii soo xirayaan buu jiri hal wasiir baa dowladda u hadli karaa afarta kalena xafiiskooda fadhiyaan oo dowr shaqeynaya accountability jirto ilaa madaxweynuhu inuu involve noqdo oo uu ka warhayo wasaaradda structure-keeda maxaa la qabay wiigaa maxaa la qabanaya yaa ka shaqeynaya mashruuca ka shaqeynaya waa maxay waqti badan baa la gelinay waxaad moodaa in waqtigeena faraha badan aad aan u gelinay inagoo shirbeeleedyo kolba odayaal lala hadlayo way fiican yihiin in lala hadlo oo waa siyaasadday ka mid tahay laakiin shaqadiina yaan ilaawo shaqadii ummadda waa inoo igmatay in la ilaawona maaha waa in accountability ay jirto waa in laga warhaya public laftirkiisu waa in feedback uu siiyo mar walba xukuumadda oo yidhaahdo halkaasaad wax marinaysaa halkaana wax marinaysaa public forum sidan oo kale inta la qabto laisu yimaado la yidhaahdo bal ka waran dadku su-aalo weydiyaan dadka inaan si weynaysiino maaha waa dadka u shaqeeya maaha waa in la arki kari waayo maaha oo dadka boorka lagu dhaafo dadkii meesha ku biheenay dee inaad u shaqaysid weeye Somaliland waa 4 milyan oo badankooda masaakiin yihiin walaa shaqa adag weeye horta أنا مرمر السلاح وليه شغال أنا ما شاء الله سوق بعد كده قلبي عليه أنا سيء أنا طفل فيها سيء طفل واحد مولي يعني شفتي أنا واحد لا شريعة ما عندي كورة حسنا ما له قريبة أنا متضع إنه ما هي نجتها sacrifice ده فايز هو كلامك عن فاعل عارفين تاسو سنوات sacrifice ده أيام يمكن كريسي كشاف سنوات وأسكان بقولي فايز الله في سامي الحوية كنتي حروب عنها هاي إنه حب يمر يمسح أنت السكوتة والشعب يلف الكود اللي في عيسو أو واحد فوكس لا يمضى والشغال السيدة تذكر عالم بعيوش الأيام تذكر شغالها عنده وزير هذه المعتمدات كلنا وش الأيام سواء هذه وزير ديك صوت رامس نيجي وزير هذا حديث يبان مني مرة دولو مش دولو يسيتي فإذا كان يقول حبا صوت حي حشي كتبات شيء هو وزير بحشي يسيتي شغال هو اللي يقول يسأل لا أشوف يعني إذا تجربت هو بدي لكن لو أنا وح برنامج صعب أي نقطة ما سؤال لا يمر بيساعد يا إنه واحد عايز نرى حلقة ورانية لقى سمير شيء تولى بروسل برك عايزنا يا شراء مود ده مود أيام شوية شيء تولى بروسل ومباح حلقة يا من اللبس لا بروسل وباعي شراء كين هذا يقول ولا سيفريني وواحد ما عنده very simple basic ما هو عقلي وين مباح very simple سيدا الله شقيه سيدا عالم وش شقيه ووزارة الوباء يسوي شقيه example ما نسيني إمك أنا ما كان حمر واحد جامعي أنا في شغلي صباحا شرايط المسوقج ترتب بالبيج امتحان بالبيج وأنا ما أعرف إلا يتم سؤال لا نشوف شغل لي يعني شغلي كاس وزارة الباقة مقارنة يا تقولوا شغال دي نايرو امتحان بالبيج يا طفل على شيء صوت أنا ما أعرف حتى سيد شغال حواقع بروسيجر كونسيوية وروح واين نقدر نحبلينا دك واين نقول السنارة قول له يعني هذا الشغل صوتها أنت تنلوجي ما هي نوصل له الشغالي ويصير له توصل الشغال بقى برضو واحد بدل بمشي سير فاضل ترينا هتعمل واحد بقول شيء واحد بدل قاعد يروح وين هل تروح قول يوصل قاعد إنسان صار واحد يري ها سير حجة وارد برنامج مصري وحيالها في practical إما من وين very basic change نقول سنين كار مركو هرفتين قليس كلا صار كويس أي لو بعدين مركا شغل ربع نوع طالع أنا كلي نوع طالع يدي كلي طالع بس كي وبيشوف ولا في دبر تودا كا
xoog waa laydinka doonayaa maskax waa laydinka doonayaa marka changeka laga hadlayana qurba-jooga ayaa ka hog qaata qurba-joogu meeshuu taageero inta badan si aan naloo dhicin waxaan u baahanahay intaasna waa ya haddaba halkay ku dheeranaayo sababtaa mid kaleeto wayla tanaacaysa waxaan u deenayaa faysal waan jecelahay waxaan kusoo dhaweyn doonaa gudoomiyaha faysal cali xuseen ayaa isaguna xududii ugu dambeysay ee minaalka inoo oran karo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu سلام الله سبحانه وتعالى إلهي يسوع كان يسوع عليه ومعه لا يسوع كان معه أنا أقصد إلهي حصنه إلهي سبحانه وتعالى إلهي أخذنا هذا الشيء وحنا هذه أول مرة حصلنا علينا أنت رأيت صور ضرائين أسلو أسلو إن بدن بعد ما يجري يلا لا يستقاش وين ما يجري أنا قصدي أنا يجري لا صلاة كي أنا يوروب كل بيت روحها وصعدها ليش منطقنا بسلاس لأنه سلويني لكن روحها وقفوا غارتين ما عشان بروس فعاروا كيف ليش يقول فلان بيجي واحد هكذا سبب بالبلد أنا نشوف على البلد وروح يسيس أمر يعني حاسس إحنا أبتغي أحمد عشان ربنا يقول لي كنتي والله هنا ما قبل ما سنتين أنا وان أسلو وحنا تيو 92 مش هو organization سومالند والعقد درسا وقتي مكان دولة إسرائيل عبد الرحمن أحمد علي يوصل خارجي ومرة يوم رايح نور يوم درسان يعني مين عندنا 94 واحد 95 كان عندنا يعني أسوق على فريق وبيع سكري وبلغوا عالمين أنا قبل ما علي على السؤال على هذا الفريق يوسف أنا يعني ما كان كنت نرد أقولي سومالند أسرة واحد يفعلي وقت بدل ما يفعل أنا صاير يطبون وشركي أنا كذا أقولي قلت نرد قال يقدر يودوني أنا جبا بيا ما بدي وخششان ما يقدر إن ما بدي دارتي يقول يوسيرين ويا أنا بيا أسرة أنا حكسر أنا أصحاب تفرني وعندنا أنا كأصحاب معي مركزنا سوى الجيل أي نوع من الجيل أو ما إنك سو كل مية حق خارج له الجيل ما تروح عن الدين بيعلقوا عندنا البلاد دول كم حنيو نواب دول عن رمضان يعني دول حنون يعني مجال سائل عنه أي سوسنو إذا حسبي سبتة تسمعني أنا كان مشارح يعصب مرة عن دنيا البرنامج عيدا وضمه سألوا تايم إنه إرسام وأنا أقول بحوي وين عندي أنا أقولني أسكت أسكريسام أيام كاني أدريشيبو كنا جاها يعني لندن كنا جاهي نحن صاحبنا هو أولو هاي وسيرة ورجلي ولا هو خير قوم أكيد بس أنا محن كنا لقنا وسيرة سلمان قال باتين أطلع كذا باتين واحد يوكلين باتين يوكلين باتين حتى أنا شباب ما كان يروح عبد الشيء أو تريح بيهم سبحان الله سبحان هذه البعض نبتدي الوسيلة سؤال وحنبطه أنا كنت شرير مجمع صايع سياسة أيام كل كم بيجري أو حبيت جل مبيعات شوية كوكا صناعي
وهذا اللامبد يلا فيوز بالمسؤول اللامبد يسبيني أنا مشتري قدي نبض وجينا وإحنا قصدي عبد الحكيم أكون إنك الدنيا عليه يعني بكرة توري بري سود ويلا توري توريا وحنتي توريا هذه وقت دايري أيوة عبد الحكيم كتور نايرة سياسة ما قال 2003 مركي أن ساس أنا يوم سنان كشمال ولا هاي نيو بورد يحسوا سميت حسوا على دونا waxaan korka cambaale loo wadin nabadii ka soo shaqeeyay markii hargeysa laga adkaaday ayaa dabcan ka baxay siyaasadda magaaladii hargeysa ayaa laba nin oo kaaga adkaaday ma baasha wax khayr ma jirto iska baxay nin yaa tolo jir cumar kaahin oo reer Toronto cumar kaahin ayaa hargeysa ka yimid waxaan ma meeshan iyo dadka wadad marqaansan oo isbedel ma raba bas kadib ma caawinta ku ilaa qoonay caawinta ma kala aniga oo jira hargeysa ma hargeysa ya akay aniga sayida taa ka bixin oo in magac maaliyaad taysii oo magac maaliyaad siyaasadda ku jiro ma sandiga saa yahay ayaa ugu kalifay ku sii jiro in fact ku jirnayna wax badan baan ka noo Soomaaliland waxaan keenay dulqaad kama keenay terrorist-ka constructive opposition kama keenay in kasoo ceelad badan ay keentay oo hadii uu markan ka hadlo magaalada saay in la isku tanaasulo la yiwu isbedbedela wax kale uu isbedbedela wala siyaasaddu waa political hada wixii asxaabtay khatar geysawaan ka bixin xataa بوليس يقول لك على المبدأ ولا كده شيء يوسع كلا أكثر من واحد وأوجدين دبعتوني بوليس سودان الصحيح مع أنها يقول كل واحد كان مع أنه وقت بلعي ما كان صاير قالوا بدنا بيش هيك ويلي إيه والباش أكيد ويلي الله هذا كل يوم أيام مريض حرا وحنقول ده ما أنت عندنا هيك السكول أي مراهن رسالة على حين كاري يعني حمد بقولك أنا أنتظر بقول هذا يوم ختمه هذا وحنا ما في 6 points عم كاني دوك عمو يعني أنه كان كالقط يعني مرحلة صدق وحنا يعني دور في عمل حياة دور الشكل لو كنت يتوقع وين علي سيتي لو كنت صدق حيوان إندورس كلام هذا اسم إندورس كلام يعني لو أكلنا يعني الفعل هين هنتروح من أوكي هذا أوضو بيش كتير سكان صوت هذي كانوا بديين وحلي فيصل أبو رعي إحنا عم تربوها أنا على المغرب ناس كنتم بحلم ها إندورس كلام إحنا بدو سوبر تيجي سنة ما هذا فيهم إندورس كلام ما بقي ده مرجعوا وكنا من شري سريال وين شري ما كان ساكن مسؤول صدق ما كان الله يكبح وما كانوا يدينه غلط يعني واحد شيء روحوا يكون في عمام كلنا هي حاجة أعيد ما كان فوت في من مستقبل الملحمينا يا كورونا بعد فوت كان وهي هدان تدخل والشقية أنا سلطة عليها إن أول مشكلة بقولها تانو مشرحة محلية مشرحية عندي شهيرة سيدي أنا يقول عليها أنا يريد هذا حسب كك عظمة ما يهي بل لم يصل أنت يريد له أنا حسب يلو يريد أنا تاس صغير ما يبغى صغير ما يبغى صغير ما ماشي وحوي معناتها كسبة عن مكريني أجرد ويتعالى إن شاء الله تعالى قام بطن وحنا إن شاء الله تعالى بقول سنة بعد أيها تيولو الدبلدي بقول جود الحسبة أعيد تصويرها حتى صوت صوت طبعا مع السماء تحديدا ما ينعم إيه اليوم هو هي كسبة بريورتو كسبة مهم بريورتو حاسومان سوتشلي شركة زمانا وين تقالني كلام الجوش نسي وحين الخرم عن ورنا
دوينهم قمن هيدا يبقوا كان هنا كذا بس ما يكونوا هنا إنه ما هن أنا كورس كفرسان ما وسكنت البيت تقول تيجي زي ما بنزلا أنت عقل ما ندرس عليهم وين هالين وأنا أقول هاي ما أنت روحي حسبي صبحة أي فعل بيجي أدوه خوف ما خوف معلماني هل ما سليم الكلام هاي وهذا كوزير في هاي استدلال ما هاي حسبي على وقت ما عيال يا صلاة وحسبي ما يسوي انستوشن هذا هو الشخصية إنه شخص ما يوتي لكن هو انستوشن بيلي كمان وين أسعد الجدات سلا وشلا ليبر كان وقف سلا وشلا وين حسبه إن شاء الله تعالى قلت كم هندرية وشلا إن شاء الله تعالى كان أحلام ما هو واحد غريب معه إن قدوميه والنقطة ومشاعر سنة يوم إما إنك على ديفيد كاميرون ويليام هيك بهيك هذا ديفيد باي هذا كوزير في ويلش ما هو يعني واحد غريب معه وواحد كذا واستند لتوكا وحن شعله إن شاء الله تعالى إن أنا وضدي أنا للنبريين لما رينا في صحة مختان أو يدخل في سما إن شاء الله تعالى سمعنا ما أنت مشكلة الأولى هي سوحوية و accountability lecture حوالي سمعنا ما أنت سلا ندي شيء يو accountability lecture شغل وما شغل protocol ما كان مقدنسية كرسانية يسوس سان دي شوي غلبة مرمر بي يسولد وسيدي وسيدي وإسرائيل ودمير ولا تيجي أدوه ما وسيدي وسيدي إسرائيل ما أبتوه سألت لي هم بيتوا وبعدين وولد كم عاصمة سونا ذا كان عارف يجي وسيدي وسيدي وحش ولا تيمان تلين بوليس تلين بوليس تلين إدارة كيف بطل أنت صبر إسرائيل وحوي ما أنت تلو على وحوي institutions كانوا إسلام أيام مدينة العين وماشي بحي وح دش كفوا لقريب هذا ما أنت خلينا حلوين وقاش الصلاة تطلع كأنتي ما كانوا شرحين أنا عندنا ما شرحين بلا أنا كان مدينة كانت مدينة إسماعيل كانت شيء تقول أصحابه يدرس وسائل لو بديو وسيرده مكا أنت حكيت لولاد يجيلوا ديالو وسيروا يسويوا لسمان أيو كان بكريه مكو برلمان كولا بابيا يسويوا أو حسب دوني جاي أيو كان بكريه ميريكو مركو ميري شفت دولا هاسو إنتوا يدمن ديو وحكاية وديو أي سوى لسمان كشاس كريه وسكوا سمية إما كأنتوا حكيوزي أيوة كان بكرانس ودوري باماكم كان جانية وسير ديري كنا عشت كبالي أنتوا تقولوا لي عشت صوبحون أنا لعبت كعب حلية كوبلا شوكية وراحوا ولا ما هو وعد يسألني أنا كل شيطان ما أقول من ليه يسنوك على يا ماي راساني عيال المدينة ولا ما يشوفني هذا يقول ولا أنا هذا كشوف دور الدعاء هذا مهم مانتا خيرات هذا حوي إن الحقوق يسوقينها إن السودان أنا كولابس كلوي لا رهبي بكسرته وحنودي المعارض حوي هذا ما معارضنا سيدي ولا معارضنا خياري وضو ويكولابس كلوبس لا حوي متى تكهرن بارسي كايستيل نقول سنك سو عيتميا هذا عيتنا وعيتنا ورياض الرقابة جوار بدي نحن إنه جرب كذا سياني مجرد ساي إنه لو وحين قصت عبد الناس بوس وبعدين ونبي يقولوا إن الكلام ورجلوه وفريش ايدياس يطلع سيما ده ولا بعياس وما لنا إن شاء الله تعالى
dhimayso haddii aanu siyaasaddiina hore bedelin ee qabaa'ilka anigu xusbiga ilaahay dhow waxaan la shaqeynayay waxaan u la shaqeynayay inay dad cusub yimaadaan platform dad cusub oo siyaasiyiintii hore la bedelo siyaasiyiin cusub ay yimaadaan laakiin tiimay dhicine أمم بكري سني كسر عروتي سيدوي كما يمكن سيد تجاري دوكاي كي منا كي كنا سيد مرة هذا مرة هذا عندك إلى السماء كي يبقى حدي مرة يوراوه ممكن تلاقي سوود الدجاج واحد يجي واحد ما تحتاج لها كذا سوود الدجاج ولا شو مرة كلية هذا أنت شنطة صوت عرضتي كذا كذا سوود الدجاج أنا يرتي وحمرتين شمعة كل اللي بداية عيدة كرم ونشوف وهذا يسود كتير هذا والله فحلو بهاي إنه كانوا ينادوا وقابسلوا بهاي قدام كانوا يقابسلوا بهاي نسود يقول ما كمان هاي أنفوت كهذا هذا قاعد بقول ما كسوق حرام أيام بس يسود لنا ما قاعد ما حاجة يسود كان صوب عليه يسود هذا ما كسوق صار حسن هذا ومطلعيني مركو قدوميها يوم الشرطة ولا نظام حسن هذا كله أنا ما كان جي حسن ما نقول حلو حسن إذا قال وصل على بعض كل مية أبوه على سوق أفر يا أبوها أفر يا المشي أصحاب يوحي كل وفين سنة ستة بالملوك واحد وصلنا ستة لو بدنا نعمل كلا صار مشرحي وفعلنا ذيك صار المشرحي يبدو بيها مشرحي يبدو بيه يمشجع حينكي ما كان كلام صدق كنت سوق كلا تاجر ترانا قبل ما نيا قلت لي وين أنا عندنا هو مكبر النور بري واحد سيدين كلا بعد ما كان يرى بري برا واحد كان يرى كي أفرع هل جيسنا كي صدحة حوي يقول برا مسين هو غير اللي ماشي هذا كنا ما بتي يعني لو اللي قال هم يوعد يسوي له جوع حسب قرارنا والله أي واحد كمان ما يقال ده كان يصير كم يصير له ولا كمان ما قال حوي حسب وحلاها ما أنت درس زملاء دياسبرا هذا يسبد الدور سنة وكل اللي يقول بالولاد أصحابنا كان برجال كله محاولة شيء ما يسوي محاولة شيء الدور كإلهي ما يقول واحد ضبط السن يترس بيجرا بدل فوت كم هلا لأنه يكون كل اللي بيصير واحد سنيت لو فوت هذا واحد هو يمكن كل اللي هو هي قبر تريكور كيسي للدرس ويتو وسيلة اللي لا كفاي وينت كم أبتدي كلا كفاي ومتفقين اللي يسوق وطبعا أحسن وين ضد الصبح وبرنامج وطا طبيعي وعم تليا لابد أن نشرح كأنه يوعد دين ما كان يسوله يعني ذلك واحد بدل متركهم يدوكنا حسب السوق الشام سومالا توجد المان تحوي اعتراف ما هو institution building وvaluable states من واقع سومالا ما كانوا تقولوا بيجي أيا تيجي جنبي أدوك أيا أورنجين عبد الرحمن أورنجين أو كل شيء كانوا اعتراف بس كده هو كونتنت كده سنة تيجي وأنا كنت اعتراف ما يستاهل مش وكنت مليار وأنا اللي باين الاستثمار كنت مليار واحد هو أجيجا وكلام صوخ خلاص أفريقيا أو قاعدوني ما هو اعتراف واحد كهربائي إن كلها ناس إن الكو وتحدودها الشرع جاي كاسس إن المال جاي كاسس إن العيد سنسيتين لك على بعض ما أنت عيد ما هرس وحنا هو تومين عيد عليك عيد كينو لما عيد هرس صح تدري كلمة بوليس كينو تدري كلمة
دريس كل بكرة تشا أسكتلو توتي كشتي توتا على كشتي ما كلا تقالوا ما يسمى إنجليز ما يسمى والله بطيء كوس الوجه ما ممكن أن تلقي 25% إذا ما ممكن أن تشتغل international هو كان يدرسوا يعني ما يكون عندهم احتراف هو state هو كعلامة اللي يدوي ما تناي ما أنت برضه حين هو يا هو تورشة ما تنفرطها وله وين بكرة وحنا كذا هو كمان هو تدخل أول السياسة دي بريء هنا ما تدخل تدخل كي تدخل سياسة دو بيتشين ونبغى قسمي أنا لا سعيد كويني oo waxaan kala kulmay nin wada ama ceergaaw ku socda markaan doorka ka soo kacay nin shabax qashan in xamaas kasoo siidkan ruuxa kasi lama waka badbaran wala gebi saxan wada dilaa loo wada dus yani ciise ma maanta waxaan ma intii halka joogta qofka soo baa ilaa inuu musharaxiin ba ciidanka badan loo boqol shay la tabaha iska تقولون كذا يا ومن صدق يطلع سياق يسوي من صدق يطلع مشاركين كمان تلوين مثلا العك يعني تبقى شرية تدرات تكون دور مرة قبل حين الشرح وأنا العك بإحسان وأنا تحسك بإحسان هذيك اللي بتيجي يعني أورك اللي بتيجي هذا تسوي بليها أنا حسبي يا رب هذا بليها حسبي يا رب حسبي يا رب حسبي marka ma xasan diiwaangelin jirtay waa walaalaha xuduudeena way furantay boqoliyo konton waxay la joogeen Soomaaliya oromada inuu kortaa jirto gaan gaadhay abtisimada bartaa jooga waliya doodeen waxa asfaga aragtay dadna u diyaariye wax aan soo isqabsan maayo dawladda soo goobay waxaan dawladda ay toojiya oo aan wasiiradiina للي هذا السوكي والأول بإيريا لإيريا ما يله أشغل كوكو نار مراقبين تاسم وصدرا هم واحد قالوا هذا أو هذا السومان اللي سوماني مطروح هذا أبو فرسنا ريبو هذا ولا هذا هو السلام شريتنا هو الفلسطين دولار تام فريو هو الفلسطين قارب عين وقشقشان لأنه هو الله أو تطبق كله قراسة لكن ريبو هذا SCC دي وحولان وشرطي عمرو بيبوشيسينا هكا وحين وضع الله إنك سوماليا وضع هذا الذي لا وحين وصل بحي أو شركي كسر بحي إنه وصمان وصي سوماليا للسومالي أكيد هو العرش قلوا كاسي وقلوا بيدا هذا عموني إنه أدوك أشيرنا ولا هذا الذي إنه أهاي أنا هن السوماليا لو كسر مقطعين يستاجي أي تحس سوماليا للسومالي سيدي أكيد equal to separate entities iyo in wada hadlaan waxaan jecelahay dawladdiina oo kamid ahayd dawladihii sponsor gareeyay co-chairka ahaa Ingiriiska iyo EU-da inay roonka labaad qabata waan ka codsanna haddii la hayla marka la kulmay waxa kale oo doonayna inaan dawladahan ku qasabno oo ka raadino in Soomaaliya u baahan tahay in wixii dhaqaale la bixinayo si toos ah loo siiyo taasoo aan dhaqaale helo wax badan baa dadka shaqada leh markaan sheegaysa shaqada abuurla waxaan doonaynaa in Soomaaliya loo sameeyo sida Soomaaliya loo sameeyay financial board ay ka mid yihiin international community-ga iyo Soomaaliya ay ka mid yihiin oo lacagta mucaawanada Soomaaliya doonayaan inaan ka kalahin waxaan doonaynaa dawladdan aan ka mid yihiin asxaabtada ku jirteen inaad pressure ku saartaan inay Soomaaliland u soo bedesho safaaraddeeda Kenya inay u soo bedesho Ethiopia sida Ingiriiska Kenya way ugu dhaafay waxaan ka codsanaynaa inaad ka codsataan inay sida Danish xafiis uga furanayo inay ka furato Danish ee Soomaaliland dawladda haddaan idinku aan dawladda kale joogta aan pressure saarin oo lobby u sameeyay Soomaaliya waqtiga wasaaradda khaarijka wasaaradda adag maaha waxay u baahan tahay idinka inaad dadkeen diyaasabaro qof kasta halku joogo uu ka noqdo wasiir khaarijiye uu dawladda la joogo uu weydiisaa si Soomaaliya u taleen wada hadalada soo socda dacayad badan baa lagu furay dacayadaha waxa la yidhi joojiya resultka
إننا واحد نروح لين الصومال هذا هذه الصومال إن كلبي حويننا أدوك إنك رسالة دوري فيها لكن مرنا معها وحنا جه قلت كلمة ترى وحنا نرسو أجمل كلمة ترى وحوي أنا قلت تنقل قلت استاكين تاس مرنا دعنا سو أما بينا كل شيء تاس وعدد أين سكوحنا نايس وضلنا هاي كلام مقران كلام المستريش برنا هاي إيجا وحوي إن تصنع حتى صومنا يولانا سامين وين وحنا بطان إيجا كله أي أوباهم إن يوم يلاقيه وتوتينو دولة قلائل ساميسان إيشو ساميسان دولة دي وسعني أي كله ساميسان وين يوم فرقة ما كي يوم يلاقيه ويتم عادي كدعوه وضد ماندي هاي توصيل هو الاسترياعي في ورصة واحد رئيس وزراء مدحوينها رئيس البرلمانكا مدحوينها قبلك ويس الناعي بيكرة سكين طبعا فيلنا إن شاء الله تعالى من نظامنا ومدحوينها يتراو كقول وينستوش هاي سنة كنا نقول جين ولنا إن شاء الله تعالى إنه ولا هذا بلونه هو أصلا إن شاء الله هاي إنه يكسر بحدوان وحوى هاكسن oo isqir hadaan dadku isqirsaneen oo meel laga wayo waxa Soomaaliya baatana Soomaaliya tahay qof aan taariikhda maanta ogoleen oo taariikh sharciga ogoleen oo tii dowladda ogoleen sabab hadi karis waxaan jecelahay inay aqliga keenaan reality program ku xisaabtamaan Soomaaliya koola sano jirtay lama arag ilmo koola sano jiray oo hooyadii uurka ku nool dib la aduunka lagu arag sidaas إن هو طاوع ولا أو إسكاشرة أو كمان إن الحماقة تحرك بسوق حام أو فوت هو له أو إيجا صدق فوت كله أو يوم أنت صدق فوت كله إن الله إن شاء الله تعالى ما هو إن إنديكيت كلام هذا كان بقول كل شيء يصير ضد الصومالي تاني واحد وين تشعيل كل هالوقتي وما شيء يصير ولا شيء يصير كاسي ولا شيء تمام كنا نعرف كسوة السومان عندنا نجاك حسوي إنه تروح حزاش ولا شيء جديد حوالي إنه عم تروح هنا أو إنه كذا عندنا قديدين هو كيس على سترون كيس بوي هذا السوماني كل هذه الكلمة ويديك عليك هذه الكلمة هو فين السوماني كل هذا سومان الحر أو برواقة أو دمرادية أو كتاب كذا سومان السوق كل كتاب أو عن كل إلى لي إن السومالي اللي بعطوه هم اللي بعطوه لنا اللي بعطوه من السومالي اللي بعطوه من الدول اللي بعطوه وأنا سنتين إن شاء الله تعالى صعبك يفضلك وحقودة لدوتها قبسنا كتاب إن شاء الله تعالى